بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسكii hore waxaan ku soo tilmaamnay الدولة الخوارزمية iyo tataarka dagaaladii dhex maray. waxaan soo tilmaamnay in dowladda ay duntay, madaxweynaheediina uu baxsaday, kadibna uu ku geeriyooday jasiirad yar oo ku dhex taalla baxru khaswiin. waxaynu soo marray magaalooyinkii bariga xige ee waaweynaa, siiba bukhaara iyo samarqand iyo wixii ka ag dhadhowaa oo tataarku ay gacanta mariyeen. waxaynu hadda isku dayi doonnaa bal isla sanadkaasi 617 hijiriyada oo runtii ahaa sanadkii ugu cajab badnaa laynta muslimiinta marka loo eego taariikhaha hore, inaynu dul marro cabbaar dowladdii oo bilaa madaxa, magaalooyinkii oo ciidamadii jabeen, iyo jankis khan waxa uu ka yeelay. dowladda tan labada gobol ee ugu waaweynaa waxay ahaayeen gobolka la yidhaahdo khuraasaan iyo gobolka la yidhaahdo faris, ama aan idhahdo gobolka la yidhahdo khuraasaan, faris waa u soo noqon doonaa, iyo gobolka khawarzim. khuraasaan waa gobol ku yaalla waqooyiga afghanistan iyo bariga eeraan. intaasoo la isku daro ayaa taariikhdii muslimiintii hore loo yaqaanay khuraasaan. waxaa ku yaallay magaalooyin waaweyn oo caan ah oo ay ka mid ahayd balkh, ay ka mid ahayd marwa, ay ka mid ahayd nisabuur, ay ka mid ahayd haraat. waa magaalooyin inta badana maqashaan fulaan annaysaburi imaamu muslim oo kale, ama fulaan almarwazi waa reer marwa, ama albalakhi. magaalooyinkaasi waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeena, ilaa laga soo gaadho khazna, dowla alkhaznawiya dhulkay joogi jirtay. khazna waa kaabuul hoosteeda, ilaa 150 kilomitr bay ka hooseysaa. khawaarzamna waa magaaladii samarqande aan sheegaynay bay bari ka sii xigtaa iyadu markaa, ama aan idhaahda galbeed waqooyi bay ka xigtaa. galbeed waqooyi ayay samarqanda ka xigtaa. waxaana mara webiga jiixoon loo yaqaano oo markaasi hadda dhex mara labadan dowladood ee uzbekistan iyo turkmanistan la yidhaahdo. jinkis khan wuxuu ku tala galay inuu bulshada madaxdeedii duntay marka hore baqa geliyo si aan cidnaba uga hor imanin. dabeetana 3 kooxood oo ciidamadiisa ka tirsan ayuu kala diray. 3daa kooxood koox wuxuu u diray iqliimka loo yaqaano farghana. farghana waa gobolka ugu xiga china markaasi. dowla alkhawaarzamiya dhowr iyo 10 dowladood oo imika jira ayaa laysku odhan jiray. dhankaa jainay xuduud kala lahayd, dhankanna ciraaq bay xuduud kala lahayd. dhankan sare qawqaaz oo dhan bay haysatay, dhanka hoosena ilaa sind bay joogtay. webiga sind mara waa bakistan, webiga dhex mara. bakistan qaybteeda koonfureed ee karmaan la yidhahdo iyo waxaasoo dhammina dowladdama ka tirsan. marka waa dowlad aad u ballaadhan. si hadda waxaan joognaa qaybteedii sare oo ah dhulkii buuraleyda ahaa, dhulkii barwaaqada badnaa, dhulkii dowladdu ku xoog badnayd. qaybtaas sare marka aynu joogno, kooxda koowaad wuxuu u diray magaalada la yidhaahdo farghana. farghana waa uzbekistan bay ku taallaa. waa magaalooyinka markaa iyada iyo otraar baa ugu xigay dhanka jine. 500 kilomitr baa markaa bari looga kacayaa samarqanda, oo meeshii uu markaa uu joogo duqii jinkis khan ahaa. koox labaadna wuxuu u diray magaalada turmud, imaami tirmidi, turmud, termad, tirmid, intaba way u akhriyaan. imaami tirmidi magaaladu ka yimi weeyaan, saaxibu sunanka waddankan hadda uzbekistan la yidhahday ku taalla. wuxuu kaloo diray iyadu 100 kilomitr oo quray koonfur ka soo xigtaa samarqandada marka aynu joogno.
wuxuu kaloo diray koox kale oo qalcad weyn oo kalaaba la odhan jiray oo qalcadihii ugu waaweynaa ee nahru jooxuun ku yaallay ah saddexdaa firqadood buu diray saddexdaa meelood buu u kala diray saddexda meeloodba dadkii ku noolaa waa shacab dhulkaa lala simay raggii waa la laayey dumarkii waa la addoonsaday carruurtii kadaalik wax kasta oo ka jiray wuu tirtiray waa ka uu tilmaamayo ruwaat taariikh nin ka mida baa wuxuu leeyahy waxay yidhaahdeen buu yidhi ina atataara laa yartawuuna ila biاddimaa walaa yascaduuna ila biاlkharaabi waاtadmiir wainahum laa yuhzamuun bay yidhaahdeen tataarku kuma haraad beelaan dhiigga mooyaane waa dhiggii cabo waxay kaloo ku sifaynayeen liibaanta iyo farxadda iyo badhaadhahi iyo sareedada iyo barwaaqada waxay gaadhaan marka uu ummad la halaagee la tirtiro yacni waa joogkooda waa cayaartooda iyo faraxooda iyo rayrayntooda iyo sareedada iyo barwaaqadooda waxay helayaan marka ay dad tirtiraan ka saddexaad waxay idhahdeen waa ciidan aan la jebin maxaad u malaynaysaa shacab risaalada la gaadhsiinaya ay noocaa tahay dowladdeedii sarena ay duntay jinkisaan iyo ciidamadiisii markaa waxay soo galeen markay saddexdaa magaalo soo baabi'iyeen ee dadkii la wada baqogeliyey ayaa waxaa loo soo kacay afghanistaan waqooyigeeda waa dhulkan taajiku degaan waxaa la soo qabtay magaalada la yidhahdo balkh markay yimaadeen waxaan hore loo arag bay sameeyeen laakiin dambay ka lahaayeen reer balkh way u soo baxeen waxay ka dalbadeen ammaan magaalada inay nabadgelyo ku soo galaan dadkana ay nabadgelyo siiyaan lana ogol yahay inay dowladda tataarku meesha soo gasho ammaankii buu siiyey dabeetana wuu dhaafa wuxuu tegay magaalo kale oo waqooyiga afghanistaan ku taalla oo taalaqaan la yidhaahdo taalaqaan iyada markii uu tegey waa dhul qalcado waaweyn leh xusuun tiro badan leh dabeetana way isdifaaceen dhowr bilood buu go'doomin ku hayey dhowr bilood kadib waa la jabsaday wixii rag sheegan jiray wuu gumaaday dumarkii iyo carruurtiina farsamadiisii buu ku isticmaalay wuu soo dhaafay wuxuu yimi magaalo loo yaqaano marwe markii uu soo galay waa magaalo weyn marwe oo turkmanistaan ku taalla balkht aynu markaa sheegayne uu cahdiga siiyey 450 kilomitir ayay galbeed ka xigtaa magaaladaasuu soo galay magaaladan markii uu ku soo socday reer balkh buu soo maray qoladii uu ammaanka siiyey wuxuu yidhi idinka ammaan baan idin siiyey laakiin bishart way la dagaalgelaysaan waynu wada duulaynaa mar waynu ku wada duulaynaa marka ammaankiinu saasuu ku sugmaya dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen axad alkutaab raghib asirjani baa wuxuu leeyahy reer balakh mar kastoo muslimka la jebinayo ma sidan bay u dhaqmi jireen balakh waa meesha iminkana waxaa la yidhaahdaa laba meelood oo casrigan aynu nool lahay gaalada caawiyey ayaa ahaa taariikhdii tataarkana labadii kooxood ee caawiyey qola waa kurdida waqooyiga ciraaq degta tataarka way soo caawiyeen dagaalkii baqdaad iyo dhulka lagu qabsanayna way ka soo qayb galeen waynu iman doonaa qolana waa waqooyiga afghanistaan qolada joogta labada qolee hadda maraykanka soo caawiyey ayaa tataarka markaana caawiyey waxaa la yidhaahdaa reer balakh waxay raaceen tataarkii dagaalkay la galeen ciidan ballaadhan oo uu hogaaminayo jankiskhaan wiil uu dhalay ayaa marwo soo qabtay reer marwi iyagu waxay go'aansadeen inaanay isdhiibin dirirna inay galaan dadkoodii bay mobilize gareeyeen 200,000 dad gaadhaya oo ciidan ay ka dhigeen bay dabadda ugu soo saareen ninkan aan dabadda isku haleelaa la yidhi dabadda muddo laysdilay dagaalkii cabbaar buu socday muslimiintii waa sabreen tataarkiina waa u sabreen waa la isgumaaday akhiiran waa la jebiyey qoladii muslimiinta ahayd waayo nafsiyaadka dadka muslimiinta waxaaba ku jira dee tataarka waa jeysh alaxmarkii ay odhan jireen laysma hortaago
laysma hortaagin waa jabeen waqca rahiiba baa dhacay muslimiintii 200,000 ahaa intoodii ugu badnayd waa la laayay baaqigiina maxaabiisnimaa loo qabsaday in yar mooyaane kadibna magaaladii marwo la odhan jiray ayaa la go'doomiyey xisaar lagu sameeyey 4 maalmood markay go'doon ahayd ayuu ina jinkis khaan waraaq u qoray ninkii qaa'idka magaalada ka ahaa wuxuu leeyahay niyow wixii dhacay dhace hadda aan nabadgelyo kala saxeexanno waxaan idin siinayaa magaaladiina tan ammaan bishart ammaanka aan ku siinayo waxaan rabaa inaynu kala saxeexanno aad soo baxdo aynu wada hadalno ninkii magaalada madaxda ka ahaa arrinkii wuu aqbalay mar haddii magaalada laga guurayo caynkana ammaan la bixinayo dagaalkiina wuu ku qadhaadh yahay wuu soo baxay waa u yimi markii uu yimi ina jinkis khaan wuxuu faray in sida boqorrada loo soo dhoweeyo waxaa la sameeyey soo dhoweyn weyn xaflad baa loo sameeyey ninkii madaxda ahaabaa meesha yimi waa la ixtiraamay waa la maamuusay kadibna wuxuu yidhi waxa aan rabaa heshiiska aynu wada gelayno in dadkaagii waaweynaana kaala qayb galaan isla markaana dee dowlad weyn baanu hadda nahay oo dhulkii ka talinaysee inaannu dadkii magaalada ama duqayda ahaa ama dowladda saraakiisheedii sare ama waxa kan wixii noo shaqayn karee dee shaqo qaban karana inaannu dooranno heshiiskaa wada galno ayaan doonaynaa marka adiga waa ku soo dhoweynay noqo duqaydii iyo waayeelkii magaalada noo keen dib buu labtay wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa dadkii isaga ka ag dhadhowaa dadkii waayo wuxuu u ballan qaaday inuu dhul siin doono inuu maamulka ka qayb gelin doono inay dad laysfahmo noqon doonaan ninkii magaalada madaxda ka ahaa marwe dib buu dadkii ugu laabtay wuxuu keenay wixii magac iyo maamuus ku lahaa magaalada markii uu dadkii soo ururiyey oo soo dhoweyntii loo sameeyey oo meesha yimaadeen ina jinkis khaan wuxuu amar ku bixiyey dhammaantood in la xidho dhammaantood xadhiggaa loo jiiday dabeetana wuxuu yidhi 2 su'aalood oo qudhaan idinka rabaa magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora wixii farsamo yaqaanee techniciana xirfadyahanee sanaaciinana liiskooda ay sameeya waxaa loo qoray magaalada wixii dad waxhaysta deganaa ee maalqabeen ahaa waxaa kaloo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan intaasi markay dhacday magaalada madaxdeediina la hayo askarteediina hore loo soo laayay wuxuu yidhi magaaladaa laga soo baxo dadkao dhan ha loo yeedho dadkao dhan baa laysugu yeedhay markii ummadoo dhan laysugu yeedhay buu kursi dahaba meel loo dhigay waa ina jinkis khaan halkiibuu fuulay awaamirtaan soo rogayaa buu yidhi hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeya buu yidhi wixii madax ahaayoo dhan dhegtaa dhiigga loo daray waa la gowracay intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro qaraqoram waa caasimaddii mongolia markaasi iyo tataarka looga talinayay caalamulislaami iyagaa technologiga dunida markan hogaaminaya iyagaa farsamada looga dambeeya wax allaaliyo waa dagaalkii 2aad Germany markii la jabiyey wixii lagu sameeyey wax allaaliya wixii wax aqoon ahaana wuxuu yidhi ha la diro farsamo garanayay waxaa loo diray qaraqoran baa loo diray waxaa soo hadhay wixii maalqabeena wixii maalqabeena buu yidhi iyaga waa in la toorjar gareeyaa ilaa intay ka caddaynayaan wixii khasnad magaaladan taallay meesha ay taallo wixii taajir ahaana waxaa lagu guray garaaca loo diray iyo tumista waxii adduun ay hayeen iyana waa sheegeen magaalada buu yidhi ciidanku ha galo wixii wax fiicanee amiina shay qiimale yaalla lacag yaalla dahab yaalla wax quruxle yaalla waxaasoo dhan magaalada ha laga soo guro buu yidhi ciidankii magaaladay galeen wixii wax qiima yaallay oo dhan baa la soo guray 3 maalmood ayaa la gurayay magaalada wixii yaallo askartu shaqo kala haynin wixii magaalada nafle yaalla in la ururiyo 3 maalmood baa la gurayay baa la yidhaha
xataa guritaanku wuxuu gaadhay bay yidhaahdaan boqor hore boqorradii muslimiinta ka mid oo sanjar lo odhan jiray ayuu yidhi xabaashiisa ha la qodo, isna dahab iyo wuxuunbaa malaa ku jireen. xataa boqorkii sanjar lo odhan jiray xabaashiisii waa la qoday iyadoo la baadi doonayo waxuun in la heli karo. intaasi markii ay dhacday ee magaalada wixii hanti yaallayna la qaatay ayuu amarkii kama dambaystaha bixiyey. wuxuu yidhi magaaladani wayna la dagaalantay, ciidan baana inugu soo saartay, waa maanta laga bilaabo ha la laayo dhammaantood. wuxuu soo rogay qaanuun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo. magaalada dhammaanteed baa la dilay baa la leeyahay. ibnu lasiir fii kitaabihi alkaamil wuxuu leeyahay ina jengis khan wuxuu amar ku bixiyey markii dadka la wada laayay in meydka loo tiriyo buu yidhi. dabeetana meydkii baa la soo tiriyey. tiradii meydku wuxuu noqday buu yidhi 700,000 goob qura la wada dhigay. 700,000 oo qof oo hal magaalo degan. yacni waxaad ka fekertaa cawaasimtii dunidu dhulkaasay ahaan jirtay waaga, meelaha ugu badan ee bini aadam dega bay ahaan jirtay. 700,000 oo qof baa madaxa laga jaray. magaaladiina buu leeyahay marwo la odhan jiray ikhtafaa dikruha min ataariikh buu leeyahay, warkeedu taariikhda halkaasuu kaga baxay. intaa markii ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen. waxaa la qabtay magaalo la yidhahdo nisabuur. nisabuur iyana waa magaalo weyn oo khuraasaan gobolkaasi ka mid ah. waxay ku dhacdaa waddankan hadda eeraan la yidhaahdo, waqooyi berigiisa bay ku taallay. nisabuur markii uu yimi, reer nisabuur iyana way isku dayeen inay isdifaacaan. 5 maalmood ayuu go'doomiyey. go'doonkaa 5 maalmoodii markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii marwe iyo dee samarqando iyo bukhaare iyo talq iyo wixii uu magaalo soo baabi'iyey warkoodii la hayo, dadka waxaad mooddaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan, yacni baqdin daraaddeed inay geeriyoonayaan. ayuu akhiiran magaaladii furtay. dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jira oo dhan dabadda ha loo soo saaro, meel saxaaraha la isugu soo saaro. magaalada markii dadkii ku jira oo dhan dabadda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan ina jengis khan baa loo tego. waxa la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhunbaa seeftu ku dhacdayo iyagoo aan dhimanin laga dareeray. dadku may wada dhimanin. dadkani waa dad raba inaan qof noolaanin. almuwafaq albaqdaadiy taarikhyahankaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraanuun, la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan. markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraan unbay rabeen. waxaa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen 700,000 lagu dilay, dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan. wuxuu yidhi magaalada tan dabadda ha la ysugu soo saaro. kadibna wuxuu amar ku bixiyey magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen, dilku waxa weeyaan buu yidhi qof kasta waa in madaxa la gooyaa. qaar kasta madaxa iyo inta kale waa inay kala baxdaa. dadka madaxa ha laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay. culamaa'i taariikh waxay yidhaahdaan magaalada tanna bil istithnaa iyadaan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray. wixii dumar ahaana la ka haystay. 15 maalmood baana magaalada baadhitaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoola laga raadcaynayey. nisabuurna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa aharan bacda cayn, raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyana saasaa lagaga tegey. haraat magaalo la yidhaahduu soo galay haddana afghanistaan waqooyigeeda ku taalla. ibnu jengis khan waxba yaan taariikh balballaadhin, siduu kuwii hore u galayana wuu ka takhallusay. magaaladan markii la leynayay nin boqora haystay oo la odhan jiray melik khan. boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisa ka mid u qaatay. casrigaa waxay caan ku ahaayeen boqorradu ibixiyo wibixi intay yidhaahdaan wuxuu kaxaysan karaa intuu kaxaystay inuu taw yidhaahdo. waa in ciidan uu kaxaystay, dabeetana meeshii buu ka baxsaday. magaalo bilaa ciidan uu soo galay, kadibna wuu tirtiray. khuraasaan
677 hijriyada sanadka gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray علماء التاريخ waxay leeyihiin min أعجب الأمور التي مرت بالأرض إطلاقا weeyaan bay dhahdeen lama arag khuraasaan bay dhahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii wakhtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taariikhda hore iyo dibtoona looguma arag khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay deganayd khawaarzam alkhawaarzami buu ahaa boqortooyadii iyo dowladda oo dhami gobolkaas dowladda laga xukumi jiray ayuu u weecday gobolka kani wuxuu u dhexeeyaa uzbekistan iyo turkmanistan labadaa dal dhexdooda buu ku yaallaa waxaa mara webiga jixon la yidhaahdo khawaarzam waa magaalo hani ah xagga dhaqaalaha istraatiiji ah oo meel khatara ku taalla population aada u tiro badani degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtay ah Genghis Khan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa khawaarzam wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badanina degan yahay dagaallo xooggan inay la kulmaan ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan 5 bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin 5 bilood wuu furan kari waayey ciidankii tataarka waa u suurtogeli weyday inuu dabeetana waa la soo kordhiyey ciidankii tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey ugu dambayntii waxay ku guulaysteen tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar baa magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo derbigii qayb ka mida buu dumiyey dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay dagaal aada u halisa qabsaday labada kooxood ba waxaa la yidhaahdaa tiro aada u badan baa ka halaagsantay yacni dad aada u tiro badan waa la isku madhay markuu arkay Genghis Khan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u soo diray ciidan saddexaad baa yimi oo tataarka ah laakiin magaaladan yare miskiinta ayada cidi uma maqna waayo muslimku qolo waliba tuula gaara baa naftu kaga baxday wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey oo boqorkii baxsaday magaaladii waxay isku dayday inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jebiyey dabeetana dadkii wax dhuunta wax godgala wax baxsada waxba sibay yeeleen baadhitaankaaba inugu tiro badanaya bay yidhahdeen maxaynu samaynaa magaaladan wuxuu go'aamiyey magaaladu waxay leedahay dhaam aada u weyn oo webigan biya uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo wuxuu yidhi magaaladan waa inugu rabshad badataye sadka ha la dumiyo derbigaa la dumiyey dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray khawaarzam webiga jixon baa lagu daray ilaa hadda webiga jixon bay ka mid tahay magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey webiga ayuu ku daray dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxaa la raaciyey daadka waxay dhahdaan taariikhda lama hayo wax la mid ah qowmu nuux mooyaane qowmu nuux sidii alle u qarqiyo badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray waxa aan ka warramayo o dhammi waa sanad gudihii waa 677 hijriyada khawaarzamna saas buu kaga takhallusay waxaa markaa uu tataarku gacanta ku dhigay khuraasaan iyo khawaarzam waddankii la odhan jiray abaadawla alkhawaarzimiya waxaan weli gacanta tataarka gelin koonfurtii dowladda koonfurta dowladda waxa weeyaan kaabul laga soo bilaabo ilaa iyo bakistan iminka waa intii sare qawqaaziyiinta iyo iiraan dhinaceedaa bari iyo intaa sare intuu qabsaday waxaan weli gacanta dowladda tataarka gelin markaa dowladdii khawaarzimiyiinta la odhan jiray koonfurteeda waxaa haystaa boqorka inankiisii jalaaluddiin nin la yidhaahdo inamadiisii roonroona ka mid ah ayaa madax ka ah haatan wuxuu noqday azaciimi sharci lidowla madaxda qura ee dee la ictiraafsan yahay waddankii uu leeyahay wuxuu isku dayey inuu ciidamo urursado dhulka intan markaa laysugu soo baxeen laysu imanaya waa dhul adag waa dhulka afghanistan loo yaqaano maanta waa dhul buuraleeya waa dhul aan farduhu si fudud u gelin
waa dhul aan taariikhda hore dadka degan loo jebin jirin, waa dhul dadka degaa yihiin dad dagaalyahana, waa dhul dadka degaa dad xamaasa iimaaniya leh oo wax iska dhiciya, waa dhul dadka degaa inta badan aanay aqoonin gumaysiga waxa loo yaqaano. saa daraaddeed ciidan buu urursaday uu samaysanayo uu samaysanayo jalaaladiin ibnu moxamed ibnu khawarzam shaah uu rabo inuu iskaga difaaco tataarkii. markii uu ciidankaasi urursaday waxa uu madaxa magaalo la yidhahdo ghazna 150 kilomitir bay koonfur kaabul ka xigtaa. halkaasuu degan yahay oo madax uu ka dhigtay caasimad uu ka dhigtay. jenkis khan markuu maqlay ciidan baa halkaa isku urursaday, ciidan tiro badan ayuu magaalada khasna u soo diray iyana in weerarka lagu qaado. meeshan waxaa kaloo yimi ciidamo atraaka oo uu wato nin la yidhaahdo sayfuddiin bakhraaq oo dagaalyahan ahaan jiray, nin dagaalada aada uga caan ahaan jiray, qaa'idna ahaa, oo 30 kun oo ciidana wata ayaa soo galay. isna wuxuu ku biiray jalaaluddiin ciidankiisii. waxaa kaloo meesha yimi 60 kun oo magaalooyinkii la tirtiray ciidamadii firdhadka ku soo baxsadaya oo iyana koonfurta soo galay. 60 kunna way timi. idan jalaaluddiin ciidankiisii uu urursaday 30 kun oo wato ninka la yidhahdo sayfuddiin bakhraaq, 60 kun oo baxsigiiya, intaas buu isku ururiyey. dabeetana waxaa la galay difaac adag. waxaa kaloo yimi boqorkiisna haraad ka soo cararay ee melik khan la odhan jiray oo isna in guuta a wata ayaa isna soo galay. waxaa meeshii isku urursaday ciidamo badan oo muslimiintu leeyihiin, wax soo jabay iyo wax soo madad ku yimi iyo wax meesha sii joogayba. ciidamo kumaankum gaadhaya marka kan baa isugu yimi oo weliba firqada turkiga ahi atraakta ahi ay yihiin niman well trained ah, askar rasmiya oo wato nin dagaalyahana oo la yaqaana oo yacni takhtiidka dagaal si fiican wax uga garanaya. ciidankii waxaa la gartay markaa jenkis khan iyo ciidamadiisa in loogu baxo dhul istraatiijiya aan magaalada la isku haleelin. wuxuu u baxay magaalo balqa la yidhaahdo, waa mantiqa wacar bay yidhaahdaan, aada u dhagax badan, buuraleeya, farduhu aanay fududayn inay si fiican uga dagaalgeli karaan. ciidanka fardo aada u dheereeyo fudud oo bila kooraha lagu fuulo oo dagaalyahanaabuu wataa jenkis khan iyo ciidamadiisu. markaa dhul aan farduhu ku fiicnayn ayay u degeen. dagaal baa meeshii ka dhacay. ciidankii muslimiinta iyo ciidankii uu jenkis khan watay isaga ka socday ayaa ishaleelay. muslimiintu waxay galeen dagaal mintidnimo ah oo ay u arkayaan inaan waxba u hadhin. idan xamaasaday muslimiintu xamaasadoodeen markay arkeen inay isku soo urureen mandaqada ay ku dagaalamayeen oo dhul istraatiijiya ahayd, tirada oo marka kan aada u badan, ninkan ciidanka watay sayfuddiin bakhraaq oo kalsooni dadka ku abuuray ciidankiisan militariya wato ciidan khatar ah, iyo ninkii marka kan waddanka qaybtii soo hadhay madaxweynaha ka ahaa oo go'aansaday inuu dagaal galo oo isna safka ku jira. boqorradii hore way yaaceen, laakiin ninkani waa nin madaxoo raba inuu dagaalka galo oo isna safka koowaad ku jira. arrimahaas oo la isku daray waxay keensatay inay muslimiinta niyaddu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan. muddo markii la isjafayey dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday. maalintii koowaad waa la isku madhay, waa la isku gabaldhacsaday. maalin labaadii baa la isgalay, waa la isku madhay, waa la isku gabaldhacsaday. maalin saddexaadii baa la isgalay, waa la isku madhay. kadib baa ilaahay u jebiyey nimankii gaaleen. 3 maalmood markii la ishayey kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahayd. waa awal mara markaa taariikhdii tataaree hore ee koowaadee la hayo la jebiyo. dilkii baa ku tiro batay, baaqigoodii baa kala firdhaday, meel kasta waa loo caymadiyey. jenkis khan oo magaaladii talqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay, idinkama noola. runtii waxaa muuqday barakat alijtimaac. dadka muslimiinta hadday isu tagaan oo iyagu isnabadgeliyaan oo ay dagaal wada galaan inaanay jabaynin.
waxaa kor noqday macnawiyaadkii muslimiinta oo jeeshka tataarka lama jebiyadii baa been noqotay. ninkii la odhan jiray jalaaladiin ibnu moxamed ibnu khwarzim shaah boqorkan koonfureed ee odaygii hore dhalay kalsoona u gashay ciidankiisiiyo wuxuu arkay rag wax iska dhicin kara raggu maanta wataa inay yihiin. kadib jankiskhaan buu waraaq u diray u yidhi ma kugu hadhay, dagaal baan diyaar u ahay. haddii war hadhay waa dagaal. jankiskhaan ciidan dambuu soo ururiyey, waa soo dagaal tegey. mar labaad baa goobta kabul hadda la yidhaahda la ysku haleelay. caasimadan hadda afghanistan ee kabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad la ysku haleelay. dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay. muddo markii la ishayeyna dagaal ka xoog badan bay yidhaahdaan kii khazna balq agteeda meesha yareeda ka dhacay dagaal ka xoog badan buu noqday kan afghanistan caasimadeedii ka dhacee kabul. mar labaad waa ku cabbeen nimankii tataarka ahaa, waana ka xoog badiyeen. waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jebiyo. laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday. waxaa soo baxay tataarkii waxaa laga helay khaniimo hayru caadiya. waayo wixii dhul muslim lahaay o dhan de waa kuwii soo guray. bukhaara, samraqand, naysaabuur, marwa, haraat, balq, wixii magaaloba jirtay talqaan waa kuwii soo gurtay. ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aad u tiro badan leh. markii la jebiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aad u tiro badan leh. ciidankii jalaaladiin uu watay xoolihii baa la ysku qabtay. sayfadiin bakraq iyo ciidankiisi waxay yidhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb gallay, si fiicanna waa u dagaalanay, xoolaha barhkaygaana la siiyo. melik khaankii haraad ka soo cararay isna dagaalka ka qayb galay, isna wuxuu yihi xoolaha barhkaygaa la siiyo. muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay, murankiibaa adkaaday, dagaal baaba dhacay, dhexdoodii baaba layska dilay. sayfadiin bakraq nimay walaaliyiin oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey. muslimiintii waxbaa ku kala dhintay. markay halkaa marayso ayuu sayfadiin ciidankiisii 30 kun ahee dagaalyahankii u watay ayuu kaxaystay, goobtiina u iskaga tegey. waxa soo baxday fikraddii ah in dadku ciidanka hunguriga isku dilo. tuu nebi moxamed laa calayhi salaatu wasalaam fawallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum. ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu leeyey, faqri idinka biqi maayo, waxaanse idinka baqaa waa xoolo, ina xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu loolaalameen, oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xoolihii la ysku qabtay. waxaan isleeyahay yurub maanta way islaami lahayd haddaan muslimiinta xoola isku qaban. dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jebiyo ee ghazawaadkii muslimiinta ee Spain ka soo kacay, France gudaheeda Lyon dacalkeeda laga jebiyey, balaat shuhadaa, sababtiisu maxay ahayd? iyagoo ku cabbay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhanaysa khariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore ka soo furteen oo xagga dambe taallay. gaaladii xagga dambe ka wareegto khariimadii baa la gurtay. ciidankiiba intuu ka baxay safkii koowaad ee dagaalka ku jiray buu dib u noqday, ilaa iyaga akhirkii la tirtiray. haniimay ku jabeen. balaad shuhadaa, faransiiska gudihiisa muslimiinta jabkoodii koowaad ee dib loo celiyaaba haniimu ku jabay. cabdiraxmaan ninkii la odhan jiray ciidanku hogaaminayay, kan haniimay ku jabeen. haniimadii baa la ysku qabtay. waxaa dhacay sayfadiin ciidankiisii inuu iskala baxay. jalaaladiin wuxuu isku dayey inuu qanciyo, in badan buu ka daba tegey, in badan buu isticdaafsaday, in badan buu bariyey. laakiin ninkan walaalkii la dilay waaba u qurqursami weyday waxaniba. anna madad baan idinku imiyo inaan wax idinka dhiciyo, idina walaalkii baa disheen unbuu isa soo taago, wax kaleba waa mari waayeen. uu iska tegey isaga iyo ciidankiisii. markuu ka baxay ciidankii niyad jab baa ku soo kornay. iyagii oo isqabqabsaday, dagaal dhexdoodii ka dhacay, muslimiintii oo badh noqotay.
may dhicin labadii guulood ee waaweynaaye muslimiintu gaadheen inay midhahooda goostaan ama istithmaar inay ku sameeyaan. Jenkins Khan marka kan ciidankiisii ayuu soo urursaday, isagii baa soo duulay. awal wuxuu soo dirayay abnaa'uhu baa ciidamadan hogaaminayay. hadda ra'su dawla almagoliya ciidan wataa soo socda. muslimkiina waxay marayaan maxay inay iyagiis hayaan. macrakadii ugu adkaydna waa ku soo socotaa. safkii muslimiinta khalkhal baa galay. jalaaluddiin wuxuu go'aansaday inaanu sida tan dagaal ku gelin. ciidankiisii buu kaxaystay, wuu guuraysnaa. Jenkins Khanna waa ka soo daba guuray, waa la isdaba galay. arrintii aabbihii ku dhacday oo kala dhacday marka. jalaaluddiin waa sii guuraa, Jenkins Khanna waa ka daba guuraa. laba ciidan oo isdaba socda. kaabul baa la iskala yimi, ghazna la isla soo dhaafay. jalaaluddiin Jenkins Khanna magaalooyinka kuma weecdo, ciidanka guuray unbuu ka daba guuraa. ninkana ciidankiisii waa soo waday. sidii la isula soo socday Afghanistan waa la iskala dhammaaday. Pakistan baa la isla soo galay. Pakistan baa la iskala soo dhammaaday. Sind baa la isla tegey. nahru Sind, webiga Pakistan mara ee Sind mara, ayuu yimi Jalaaluddiin iyo ciidankiisii wata. doonyaba wuu waayey. dani ku teh rag inay ishaleeshaan. mar haddii doonye la waayo meel u gudbaanay jirin, Jenkins Khanna wakhti iskama lumin. tuulana ma furan, cidna ma boobin, cid kalena ma laynin. ciidankan buu ku daba jiraa. Jenkins Khanna waa Jalaaluddiin meel buu la hadlay, ciidamuu dirtay, doonyaa loo doonay. doonyaha intii loogu maqnaa ayuu Jenkins Khanna soo gaadhay. waxay noqotay in la isgalo. haatan dani waa dagaal ku tehe, waa la isu jilib dhiga. maantii koowaad baa la isgalay, waa la isku madhay. maalin labaadii baa la isgalay, waa la isgumaaday. maalin saddexaadii baa la isgalay, waa la isxasuuqay. lama kala tegin. dagaalkii wuu adkaada. halkaa markay marayso oo muslimiintiina dad badani ka dhintay, gaaladiina dad badani ka dhintay, muslimiinta raggii wax hogaaminayay malik khaankii shalay ay isku hayeen xoolaha doonaya xoolaha, halkan buu ku dhintay. ma calfan xoolihii lagu kala tegey waxba lagama cunin. malik khaan halkaas buu ku baxay. maalin afraadii dagaalku wuxuu noqday labadii ciidanba in dhimashadu ku badatay oo la kala yaro gurto oo ballaysu nasto nin waliba wixiisii uu dib isku dayo inuu isu habeeyo. hudnada wakhtigii lagu jiro oo labadii ciidan kala yaro daaleen oo guul degdega ninna gaadhi kari waayey, oo nin walba dhegta dhiigga loo daray, oo nin waliba jaraaxaadkiisii iyo wixiisii uu hagaajisanayo. intii taa lagu jiray ayaa doonyihii yimaadeen. Jalaaluddiin ciidankiisii markaa wuu rartay, webiguu ka tallaabay, doonyihiina xagga shisho u kaxeeyey. Jenkins Khan marka kan ciidankiisii wuxuu ku soo tallaabiyo ma hayo. laakiin ma aladii xadath, maxaa dhacay marka kan? awal dowla alkhawaarzimiya koonfurteeda ninkan iyo ciidamadiisaa joogo, muslimiintii xagga hoose joogtay way badbaadiyeen. muslimiintii xagga sare jirtay iyaga waa inagii ka soo warrannay warkoodii. haatan muslimiintii xagga hoose jirtay ciidamadoodii webiga Sind bay ka tallaabeen. waxaa isku soo hadhay Jenkins Khan iyo ciidankiisii iyo maatadii muslimiinta iyo magaalooyinkii muslimiinta iyo wixii aan ciidan ku dambaynin. Jenkins Khan marka dib buu soo noqday. markuu dib u soo noqdayna wuxuu bilaabay magaaladii koowaad ee lagu jabiyey inuu qabto ghaznuu yimi. ghazna wuxuu la simay dhulka. wixii dad joogay waa gumaaday, wixii daar ku taallay waa dumiyey, wax walba waa baabi'iyey. ibnu lasiir raxmatullaahi calayhi markuu tacliiqinaya wuxuu leeyahay, wuxuu ka tegey buu yidhi khaawiyatun calaa curuushiha kaan lam tagna bilams. weedhaasuu isticmaalaya. magaaladaa wuxuu ka baxay Jenkins Khan iyadoo dunsan, cidna ku noolayn, meel la degayba aanu ekayn. hore ayuu uga socday.
meel dhexaba markuu marayo jalaaluddiin ciyaalkiisa iyo reerkiisa iyo guurayuu hela waa qabtay iyana waa bireeyey boqorkan sind ka tallaabay nahru sind aabbihiiba dee waa tii la qabtay hooyadii iyo ciyaalkiisii beriguu baxsaday kana markuu baxsaday waxaa la qabtay intuu dhalayna dhegtaa dhiigga loo daray iyana waa la bireeyey haddaan iska soo koobo warka waanan waxba akhrinin wixii muslim la laayee dambe jenkis khan afghanistan oo dhan buu qabsaday afghanistan waa dhulka ugu istaraatiijisan caalamulislaami bay ka mid tahy waa dhul bay yidhaahdaan koreeya buuraleeya ninka qabsadaa jayna uu ku duuli karo indiya uu ku duuli karo ciraaq iyo xagga uu ku duuli karo qawqaas uu ku duuli karo waa eshiya halka laga xukumo bay yidhaahdaan eshiya halkaad ka xukunto haddaad afghanistan qabsato rushiya waa duuli jina waa duuli indiya waa duuli ciraaq iyo iran waa duuli dhan kasta waad u duuli kartaa bay dhahaan wuxuu isku hubsaday inuu qabsado meesha afghanistan la yidhaahdo waddanka kani wuxuu ku caan ahaa dad degan oo dagaalyahana oo caynkana laakiin ciidamadoodii labada goor jebiyey iyana warkoodii waan soo mar jenkis khan hadda gacantiisa waxa ku jira waddankii la odhan jiray mongolia china kuriya manimar waxaa barigaas oo dhan soo tiri nebal wixii xaggaa lagu sheegi jiro o dhan soo tiri uu soo wada qabsaday kadibna turkmanistan afghanistan iran inteeda bari inta ugu badan leh azerbaijan armeniya georgia intaa hal san uu ku qabta taarikhyahanadu nin meel duulo waa la arko qabsadaa laakiin waddan intaa leeg taariikhda wax hal sano ku qabta ma soo marin horena looma hayo dibna looma hayo intuu dilay taariikhda ma soo marin lama hayo magaalooyinka intuu ku dilay qof wax intuu magaalo qabto intaa ku dila dadku laayay hal sano bini aadam intaasoo dada dila lama hayo walaa second world war dagaal labaad ee duniyeed iyo ku ka horreeya hal sannadood intuu qof ku dilay 617 hijriyada lama hayo sidaa ogeed buu ibnu alathir wuxuu odhanayaa waqad jaraa lihaؤulaaءi tatar ma lam yusmac bimilihi min qadiimi الzamani waxadiiثih fahadihi طaaئfaة تkhruج min xuduud الsiin wla تnqaضي calayhim sanة xatى yaصila bacضhm ilى bilaadi armeniya wayujaawiruuna الciraaq min naxyati hamadan wtallahi la ashuk أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدها ابن الأثير wuxuu leeyahay qolada tan waxa uu dhacay buu yidhi waxaan bini aadam hore loogu arag taariikhda horena lagu maqalta dambana lagu arag buu leeyahy lama arag buu yidhi koox yaroo intay jayna ka soo baxdo hal sano gudaheed ilaa armeniya ku qabsata baxrilaswad iyo agaarkeeda armeniya ka gaadha ilaa iyo ciraaq inta ka dhexla qabsada lama arag buu yidhi kama shakisni buu yidhi waxaanaan qorayo qofka akhriya aan wakhtiga joogina dabadeed yimaada inuu odhan doono buu yidhi war waxani waa khuraafaad kamaan shakisni buu leeyahy anigu se waan taaganoo waan qoraya kuwa dambe se inaanay rumaysan doonin anigu kama shakisni buu tilmaamaya aan soo koobno waxaa soo galay sanadkii 618 hijriyada tataarkii dib buu soo noqday meesha azerbaijan la yidhaahdo qabsaday magaalo muslimiintu ay lahaayeenoo muraqa la yidhaahdo soo galay taarikhyahanadu waxay yidhahdeen magaalada tan marka kan gabadh baa ka telinaysay waa muslim gabadhay u taliso magaaladaasi gabadhu ka telinaysay buu soo galay dabeetana manjaniiqu waa madaafiicdii waagaa jirtay waa baal lagu guro dhagxanta oo lagu tuuro dabka oo lagu tuuro gaas iyo waxa qarxa inta la isku rido lagu tuuro yacni madfacu intaanu noqon kabaarudu qarxisa waxaan jiray mid farsamo kala qarxiso oo wax tuura marka manjaniiqa ahaan jiray waagaa madaafiicda jirta manjaniiqyadu u dhigtay manjaniiqyada waxaa kaloo loo isticmaali jiray axjaarta waaweyn ee derbiyadan qalcadaa lagu duminaya lagu tuuri jiray manjaniiqyuu u xidhay dabeetana waa dumiyey magaaladiina wuu qabsaday
bishii safar afarteedii baa la yidhaha 618 ayuu magaaladaana qabtay caadadii uu lahaa buu mariyey raggiina waa laayay xoolihii iyo wixiina waa qaatay dumarkii iyo carruurtiina waa la faraxumeeyey ibnulasiir markuu taariikhdan ka warramayo wuxuu sheegaa wuxuu yidhi dadka warramaa waxay ii sheegeen dadka siday u niyad jabeen buu ka warramaya nin tataari intuu ku soo baxo 100 muslim oo meel fadhiya inuu yidhahdo ha dhaqaaqina iswada taaga oo la iswada taaga buu leeyahy oo midba mar madaxa ka jaro waxay taariikhyahanadu sheegeen buu leeyahy inay gabadhi ku soo baxda rag muslimiin ay tidhahdo istaagtaaga oo iyadu layso dee waa maraykanka aad arkayso in imka laga baqayo istaagtaaga haddii la yidhaahdo waa in la istaagtaaga waxaa dhacay dadka baqihii galay wuxuu gaadhay xad tataarka la yidhaahdo raggoodaaba ka dara dumarkooda say wax u laayaan oo rag iyo dumar iyo wax walba laga boqo tataar sheegta tataarku marka kan iiraan iyo dhulkaa ka soo takhallusya afghanistan iyo armenia iyo azerbaijan iyo bakistan iyo dhulkaa soo dhaaf turkmanistaanada iyaga hadalkooda daa wuxuu marka kan joogaa jaziirada inuu weeraro jaziirada waxa u yaqaanin inta badan labadan webi ee ciraaq mare dhexdooda waa ciraaq waqooyigeeda waqooyiga ciraaq wuxuu isku dayay inuu arbiliya meeshan iminka akraadu degan tahay arbil inuu weeraro iyo muusal waa ciraaq waqooyigeeda labada magaale ah boqorkii hurday ee annaasir lidiin ilaahi la odhan jiray waa boqorradii ugu liitay muslimiinta soo maru ka mid ahaa oo xukuma baqdaad ayaa marka kan maqlay waqooyigii ciraaq in la soo galay dowla alkhawarzimiya intii la tumayay wuu faraxsanaa waayo dowla alkhawarzimiya col bay ahaayeen ciraaq la laynaya bay ahaayeen marka isagu waa faraxsanaa haatatan baqaa soo galay waayo ciraaq waqooyigeedii buu marayaa ninkii arbiliya baa la marayaa maxay iyo muusal wuxuu isku dayay inuu ciidamo muslimiina ururiyo wuu dhawaaqay muslimiintu ha soo baxdo ciidamuu sameeyey nin ka mida saraakiishii muslimiinta ee markaa joogtay mudfiruddiin la yidhaahdo mudfiruddiin ayaa ciidankii loo dhiibay imisaa u malaynaysaan boqorkani ciidanku isu keenay boqorkii dhammaa ee ciidanka baadi doonay 800 oo nin buu soo helay bay yidhahdeen alkhilaafa alcabaasiya annaasir lidiin illaah 800 ayuu soo helay 800 baa loo dhiibay mudfiruddiin oo la yidhi bal arbil tataarka ka hortag oo 800 oo nin mudfiruddiin waxoogaagiisii ciidana buu soo kaxaystay arbil agagaalkeedii iyo meelaheedii buu yimi wararkii baa isgaadhay inay muslimiintii soo baxday ayuu jankiskhaanna loo sheegay iyo ciidamadiisii alkhilaafa alcabaasiya waa magac aad u weyn oo 500 iyo dheeraad sannadood jiray hadda waxaynu jooganaa maxay 618 hijiriyadaan idinkan warramaya waxaanay bilaabmeen 132 hijiriyaday soo bilaabmeen yacni 130 hijiriyada ilaa 612 5 qarni dowlad soo jirtay weeyaan waa dowlad dunida dacladeeda gaadhay waa dowlad aqoonta dunida hogaamin jirtay waa dowla uulaa bay ka tahay waxay huwantay shaadh weyn oo dunidu ka cabsato laakiin ciidan 800 ay wadataa waxaa ku xisaabtamay jankiskhaan markaa in 800 iyo waxaan la sheegayaa khudca inay tahay taktiiki military inay tahay oo intan yar intay hadhow loo baqa carari doono dee fakha ciidankii weynaa ku dhici doono dabeetana wuxuu go'aansaday inuu xarbu istinsaaf galo ee aanu muwaajaho gelin alkhilaafa baa hadda taagan dee awal dowla alkhawarzamiya bay ahayd alaan waa alkhilaafa alcabaasiya waa dowladdii muslim oo dhammi hoos tegayey arrinku si fudud wax loo geli kara maaha sidaa awgeed tataarkii waxay go'aansadeen xarbu istinsaaf ku dhufo ka dhaqaaq iyo boob iyo kolba meel la galo iyo baqagelin iyo baabkaa in la galo laakiin aan ciidanka kan la waajihin iyo inuu sameeyo maxay axlaaf iyo itifaaqiyaat iyo heshiisyo iyo gaashaanbuur
dunida inuu la soo heshiiyo gaashaanbuuro soo samaysto si khilaafada markaa loogu wada diulo kadib qoladii khilaafadana ilaahay baa marka kan badbaadiyo dib baa looga noqday hamadaan iyo xaggaasuu u kacay hamadaan buu cagta sii mariyey ordawel magaalo la yidhaahdo cagta sii mariyey wixii uu dhankaas sii layn kara buu sii laayey ilaa iyo uu ka gaadhay magaalada tabriiz la yidhaahdo tabriiz waa hore ay yimaadeen waxay yimaadeen wakhti qabooba oo baraf ku dhacayo dabeetana ninkii boqorkii markaa haystayna wuxuu siiyey waxoogaa xoolaa iyo dhar iyo lacag iyo ballan buu la galay intoodii bay qaateenoo waa kuwii iska tegey waxaa haystay ozabik ibnulbalhawaan ninkaynu ku tilmaamayno oo nin khabriyo cabaa bay ku sheegaan taarikhyahanadu al'aan waa wakhti jawigu uu fiican yahay dee ballankana awalba muu aqoonin waxay isku dayeen markaa haatatan inay weerar rasmiya magaalada ku qaadaan laakiin magaaladiina way isbeddeshay intii waxaa qabsaday shamsudiin atakraa'i nin la odhan jiray oo ay taarikhyahanadu yidhaahdaan wuxuu ahaa nin adduunkiisa iyo aakhiradiisaba fahmaya ninka kani markuu meesha qabsaday magaaladiisii uu diyaargaroobay ciidamuu samaystay waa diyaargaroobay inkastoo tataarku ciidan aad u badan iyo dowladdaa laga wada baqaya yihiin laakiin wuxuu ku tala galay dee kollayba waad dhimanaysaaye adoo sii jeeda ha dhiman meesha nimankani dee cidba dayn maayaan marka haddaad raacdana wuu ku dili haddaad dagaalantana wuu ku dili had walba waad dhimane inuu isku dayo inuu isdifaaco ayuu ku tala galay jihaad buu iclaansaday dadkii baa la xamaaso geliyey culammadii baa dhawaaqday magaalada qalcadaheedii iyo aswaartii derbiyadii ku waraagsanaa iyo wixii baa la hagaajiyey dhufaysyadii iyo godadkaa la qotay waa loo diyaar garoobay tataarkii wayse soo taageen waxay maqleen meeshan in jihaad ka iclaansan yahay kadib waxay dhahaan raalli ahaada iska sii noolaada waa ka tallaabeen may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinkaasi meeshan ku yaallay belqaan la yidhaahdo waa iiraan magaalo ku taalla iyana ramadaan 618 bay soo galeen iyadana cagtay mariyeen ibnulahir wuxuu leeyahy kanuu yashuquuna buطuuna alxubaala wayaqtuluuna alajinna وكانوا يرتكبون الفاحشة مع النساء ثم يقتلونهم wuxuu tilmaamayaa magaaladan markay qabteen ilmaha uurka ku jira xataa way dileen buu leeyahy tabriiz oo jihaatamaysa markay arkeena soo dhaafeen tan yar baa la yskaga cadha burburay ilmaha uurka ku jira xataa waa dileen buu yidhi kuwa uurkale uurkay ka soo rideen ajinnada waa laayeen dumarka raggooda hortooda ay ku farax xumeeyeen kadibna waa laayeen xoolihii waa boobeen farsamadii ay yaqaaneen waa soo socdeen ganje magaalo la yidhaahda yimaadeen reer ganje laakiin iyagu sidii reer tabriis bay isdiyaariyeen jihaadkay ku tala galeen tataarkii waxay maqleen halkana jihaad baa ka iclaansan sii nabad ahaaday yidhahdeen xagga kale ka dhaafeen waa ka tallaabeen wuxuu tegey markaa xagga sare ayay u kaceen waddannadan ruushiya dhulkan muslimiinta iminka weli gumaysto dakhistaan bay galeen cagtay mariyeen shiishaan bay galeen cagtay mariyeen ruushiyay bilaabeen inay dagaalka ku sii qaadaan webigan foolga la yidhaahdo iyo agagaarkiisa oo atractu marka ay degi jirtay galeen foolgayana cagta mariyeen dadkii deganaa sanadkaa ku xigay 619kii waxay gacanta ku dhigeen sanadkaasi markuu soo galay oo tataarku marka kan ay gacantooda ku jira dowla alkhawaarzimiya dhammaantood kazakhstan kirgistan tajikistan uzbekistan turkmanistan bakistan oo laga reebo gobolka yare karmaan la yidhaahdo afghanistan iiraan oo laga reebo xuduudda yar ee galbeed oo ay taa'if alismaaciiliya degantay azerbaijan armeniya georgiya iyo ruushiya galbeedkeeda intaasay marayaan intaasay hadda gacanta ku hayaan 620 markay taariikhdu maraysay si ay u fahamtaan muslimiintani maxay u daateen raagib asarjani fi kitaabi afar xaadiثuu sheegaya uu leeyahay afartan haddaa ila fahamtaan
dadkani waxay u burburayeen waa garanaysaan buu yidhi xaadithada koowaad wuxuu leeyahay tataarku raashiyay galeen dagaaladii raashiya ay ku wadeen markay meel dhexe marayaan daa'ifo bulgaariyiin la yidhaahdo maaha bulgaarkan waa bulgaariyiin raashena markay halkaa marayeen ayay qabaa'ilka bulgaariyiintu soo jebiyeen tataarkii markay soo jebiyeen jab aad u fool xunnaa ku dhacay waa baxru khaswiin galbeedkeeda baa la yidhaahdaa dabeetana jabkaasi wuxuu la soo dhaafay in shiishaan iyo dakhstaan iyo adarabijaan iyo waxaasoo dhammi gacantooda ay ka soo baxaan nimankii tataarka la odhan jiray raashiya qayb ka midabaa jab xooggan u geysatay wuxuu keenay markaa dhulkii ay qabsadeen iyo wixii oo dhamm inay burburaan oo xooggii tataarku uu gilgilmo laakiin muslimiintu marka kan maxay sameeyeen markii qolo kale u soo jebisay iyagu maxay yeeleen kow waxay dhahdaan armeniya muslimiintii boqorradii joogi jiray boqor ka mid ah ayaa ciidan diyaariyey duulimaad isagu wuxuu ku qaaday bay yidhaahdeen kurjigu waa georgia doctor raakib wuxuu leeyahy waxaan ku macnayn karaa waxa kani alxawal asiyaasi buu yidhi xawalku waxa weeyaan dadkan indhuhu xanuunku ku dhacee markaa indhuhu ay iska soo hor jeestaan yani xagga siyaasadda buu leeyahy waxbaba arki maayaan waayo muslim qaybtiisii galbeed oo dhan bari oo dhan tataar baa haysta dowladdii tataarkana qayb ka midaa la soo jebiyey way jilicsan tahay halkuu tataarka kaga duuli lahaa ayuu qolo kristan oo kale oo meel iska joogto waddan kale oo weliba iyaguna tataarka dhibtiisa dhadhamiyo uu tataarku ay hore georgia hore u galeen oo mushkiladu qabsatay halkuu ama kuwan xilfi wadaag uu iska ilaalinayo la geli lahaa ama at least heshiisuu iskala geli lahaa iyaga dhaafi lahaa uu focuska saari lahaa dowladda weyn ay ishayaan ayuu intuu tataarka ka jeestu meel kale isku taagay dagaallo badan oo caalamulislaam ka socdaa noocaasay u egyihin waxa muhimkaaba arki maayo wax yaroo kalunbaaba u muuqda meel yaroo kalunbay dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkoodi iyo qorigoodi iyo waxoodo dhan usoo jira waa xawal siyaasiya waa dadka oo aan bislaanin aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horraysiiyaa qofka khabiirka ahi ahdaaftiisu waa inay taabuur ku jirtaa waa inay kala dambeeyaan hadafkaaga ugu dambeeya ka ugu horreeya haddaad kala garan weydo waa mushkilad ninka kani wuxuu hoos imanayay boqorkii la odhan jiray alashraf ibnu muusa alcaadil ee jasiirada ka telinaya waqooyiga ciraaq ka telinayay buu hoos imanayey dabeetana duulimaad xaggaasuu usii qaaday idan waa xikmad darro caskariya waa ru'yo siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kiristanka iyo muslimka ahaa markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay waana istayna ah waa goorma labaduba tataarka iska dhicin kari lahaayeen laakiin markay labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaada uu tilmaamayo wuxuu leeyahy dadkani say u fakerayaan baan rabaa inay la garataan dhacdada labaada uu tilmaamaya waxa weeyaan tataarku markii ay jabeen gobollada eeraan gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray carruurtiisii ka mid ah jalaaluddiinkii maaha waa nin khiyaasudiin la yidhaahdo oo jalaaluddiinka indiya u tallaabay ay walaalayiin kaasaa wuxuu qabsaday madiinatu ray iyo isbahaan iyo meelahaasi wuxuu qabsaday koonfurta iyo galbeedka eeraan marka laga reebo khuraasaantii sare waa dowlad cusub oo samaysantay oo laakiin inanu dhalay odaygii moxamed alkhawarzimi uu hogaaminayo laakiin waa dowlad at least tataarka iyo khilaaf alcabaasiya dhexdooda ku jirta siduu u fakeray annaasir lidiin ilaahigii baqdaad haystay khaliifkii cabaasigu khawarzimiinta col bay ahaayeen wuxuu jiri wallahi waa kuwaa mar labaad soo noqday khawarzimiintii halkuu ka fekeri lahaa tataarku 800 nin u helay qaar kaaga gudban baa alla keenay halkuu ka odhan lahaa ayuu wuxuu ka fekerayaa kooxdani hadday xoogaysato oo dowladda yaro cusubee samaysatay hadday soo xoogaysato inay khilaafadiisi khatar ku tahay aragti istraatiijiya marnaba kuma fekerin wuxuu bilaabay markaa dowladdaa yara cusub ee muslimkaee samaysanaysa siduu u khalkhalgelin lahaa dabeetana qoraal wuxuu la sameeyey khiyaasudiinka nin u abtiya oo la ydhaha iqan taisi waa abtigii ruma wuxuu abti u yahay kan dowladda samaystay
oo nin siyaasi oo hunguri siyaasadeed yarahayaabuu xidhiidh la sameeyey uu leeyahy meesha khalkhali ninka aan wada inqilaabno adaan rabaa inaad dowladda qabsato taageerana waa ku siinayaa meeshaasaad u khalkhalinayso khalkhali kani oo markii horeba hunguri siyaasi hayay laakiin dee yaro cabsanayay oo ninkan daba socday ayaa imka ilan khilaafadii baa usul dhabaalaysay ee wuxuu isku dayey marka inuu isna ciidamo urursado wax samaysto waa kano markii dambena ciidan baabuu samaystay cisyaan buu sameeyey isagii baaba muslimiintii ku bilaabay weerar oo dhulgooyo iyo qaaticu ariiqnimo iyo waxbuu bilaabay iyo muslimka boobka ila dowladdu raba inuu khalkhal geliye waa nimankii tataarku ku habsaday ee imka raashi iyo waxoogaa alla ka keenay ay tataarka jabiyeen halka iyagu is urursan lahaayeenee tataarka la isku wada dari lahaa ilaa iyo mongooliya lagaga celin lahaa ayaa waxaa markanba bilaabmay in iyagu is riixriixaan oo maxay dowladnimada kiina wuu ogaaday khiyaasudiinkiina ciidan buu samaystay waa la isu baxay labadii kooxood baa isku jabay kii khilaafadu taageeraysay baa la jebiyey iqaan taa'isigii laakiin waa goorma waa goor cadad tiro badan oo muslimiini dhintay kaa ciidankiisa baaqigii ka hadhayna adarabijaan bay u baxsadeen yacnii waxaan uga jeedaa tusaalahan uu soo qaadanayo inuu caddeeyo muslimiintu inay iyagu isu muuqdaane ciddan haysata iyo gaalkan kusoo duuliya waxanba inaanay arkaynin boqor yaroo waliba inuu isleeyahy kan kugu xiga nafta ka hor qaada ama isagoo ha kaa hor dhinto ama magaalo ka qabsa ama riix xaalada saddexaad uu tilmaamaya waxa weeyaan waa xaaditha ibnulathirba uu odhanayo xaadihatun ghariiba lam yuujad miluhaa buu yidhi ibnulathir baa wuxuu leeyahy waa dhacdo ghariiba oo aan iyadoo kale la arag dhacdadani maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa qoladii kurjiyiinta ahayd alkurj georgia boqortooyadoodii baa gabadhi qabsatay kristani gabadhii boqortooyada qabsatay ayaa dabacday inay guursato dabeetana georgia iyo agaarkeedii waxay ka weyday cid abnaa'i ilmuluuka ama cid ay aragtay inay u cuntamaan oo ay guursato dabeetana way diidday waxaa maqlay boqorkii aan ka soo warramayey dowla salaajiqa anadooliyiinta anadol waa turkigii qadiimka ahaa marka laga reebo istanbul iyo xaggan byzantiyiintu haysatay anadol dowla salaajiqa baa ka taagnayd salaajiqada waa dowlo islaamiya waxaa markaa madax ka ah muqiisadiin taqral shaah oo qalj arsalaankii hore ee macruufka ahaa ayaa dhalay boqorkaasi baa maqlay armeniya boqoraddeedii inay guurdoontay dabeetana uu fariin buu u diray uu leeyay waxaan rabaa inankayga inaad guursato boqoraddani christianitigeeda mutacasib bay ku ahayd waxay tidhi baahi uma qabno inaan muslima inaan guursanno baahi uma qabno wuxuu yidhi haddiiba aad aqbalaysa inaad guursato wuu kuu kiristaamoobaya haddaba boqor muslima inanku ha kiristaamoobo buu leeyahy laakiin george iyo boqoraddeeda ha guursato boqorad ha noqdo waa ogollay bay tidhi haddaad taa aqbalaysaan waxaa la soo diray ina boqor oo raba inuu diinta kiristankaa qaato si uu boqoradda u guursado george yuu yimi diinta kiristankuu galay boqoraddii baa loo guuriyey halkaasuu ku guursaday qiyaas caalamulislaami raggii ka telinaya markaa siday u fakerayaan boqorad yar oo haysata georgiya iyo mamlakaddaa yar haysata in ay guurdoon tahay buu inankiisa kiristan uga dhigayaa boqoraddani waddan bay haysataa inan yaroo muslim oo kiristaamoobay dee tiisiiba ka baxaynaan waxba ku tirinayna waa iska garanaysaa isagoo joogay umay dheg taagin waa iska tubataa naa waxaan jooji buu yidho sheekabaraleyda la bax bay ku tidhi mid addoonkiisa iyo addoomihii meesha ka shaqaynayay mid ka mida ayaabuu ugu yimi oo sariirtiisii saaran dabeetana uu iska yara xanxanaajiyo wuxuu yidhi waxaan hadaad dayn weydo ma waxay ku tidhi ama sidaa ku joog ama waad arki doontaa waxa kugu dhaca waabuu iska yara cadhaysiiyey waxay tidhi ha la qabto ha la masaafuriyo meel gaarah lagu xidho waa la kaxeeyey meel gaaraa lagu xidhay nin kalena way iska guursatay isna halkaasu ku xidhnaa waa boqorkii inankiisii reer anadoole loo diray inuu gabadha kiristankaa guursado
yani xaadiثadani maxay tilmaamaysaa? waxay tilmaamaysaa siday maadiyiin u noqdeen dadkan muslimiinta ah iyo caqaa'iday rumaysayiin inta ay tamar leeg tahay. dadkaasaynu rabnaa inay markaa caalam alislaami marka kan wax ka dhiciyaan. waa iska soo koobaya, wakhtigu waa dhammaad baan filaya, inkastoo aanan muuse waraaqdiisii wali haynin. 621 markay taariikhdu maraysay waxaa dib u bilaabmay khiyaatuddiin ninkii la odhan jiray aynu ka soo warrannay ee dowladda yare cusub aasaasay. mandaqada faris la yidhaahdo inteeda badan buu qabsaday. waxaa ku soo baxay nin kale oo sacduddiin ibnu dakla la yidhaahdo. dabeetana dhexdoodii bay iska dileen, dad badan baa ku kala dhintay. akhiiran waxay noqotay khiyaatuddiin inuu meeshii u soo xoog badan karo, sacduddiinna la yaro riixi karo. warkaasi isagoo taagan oo muslimiintu saan isu laynayso ayaa tataarkiina 3,000 oo askaray faris u soo direen. madiinatu rayi bay soo baabi'iyeen, saawa bay soo baabi'iyeen, qumtan aaraantu ay degan yihiin bay baabi'iyeen, qaashaan magaalo la yidhaahday baabi'iyeen, hamadaan bay soo baabi'iyeen, farsamadoodii bay dib soo celiyeen. waa 3,000 oo nin. jankiskhaan bay u tageen iyagoo nabad qaba, waayo labadii ciidana yarraa ee meesha joogay iyagaa isdilaya. khiyaatuddiin iyo sacduddiin iyagaa isdilaya. daa'ifo yaroo 3 kurina magaalooyinkay tirtiraysaa oo ay sii wadda. 622 taariikhdu markay maraysay ayaa dib waxa u soo hambaabiray jalaaluddiinkii waadiga sindi ka tallaabay ee indiya u tallaabay. indiya dowlo khawriyiin la yidhaahdo muslimiina baa degan. iskumanay fiicnayn jalaaluddiinkan, laakiin inuu xaggan iska waajaha buu tataarka ka door biday. kadib buu dib uga soo tallaabay webiga sind. aan halkaa ku joojino mar hadduu axmed soo fadhiistay. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.